war degdeg ah ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobadeena kuwa ugu doorka roon madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa hawada laga celiyay diyaarada ay wateen oo ku wajahnaa garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ila wareedyo ka soo baxay ayaa sheegay inay wateen ciidamo aad u qalabeysan isla markaana ay ugu talagaleen inay sugaan amaankooda dhanka kale xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in wax ciidan looga baahneen gudaha magaalada Muqdisho ammaankeeduna uu aad u sugan yahay wararka ayaa soo baxay xilli ay ku baaqday dowladda federaalka wada hadal ka dhanaa dhammaan dowlad goboleedyada dalka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir Fiqi ayaa ku baaqay in wax ciidan la imaan karin gudaha magaalada Muqdisho shirka wada tashiga iyo samata bixinta ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa diyaar noqday oo soo fariistay afar dowlad goboleed halka Puntland iyo Jubbaland hawada laga celiyay loona diiday inay degaan diyaaradaha ay wateen xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aadamo culus u jeedisay Axmed Maxamed Islaam iyo Saciid Cabdullaahi Deni sheegtayna marka ay dalalka shisheeye oo kacayaan inay qaataan boorsooyin oo kaliya ah dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay Axmed Maxamed Islaam iyo Saciid Cabdullaahi Deni in mar walba oo loo yeero ay soo kaxaystaan kumanaan ciidan iyo ka badan oo hubeysan xukuumadda federaalka ayaa diiday kana soo horjeedsatay in dowlad goboleedyada ay la imaadaan ciidamo hubeysan dowladda ayaa sheegtay inay khalkhal amni u baahneen caasimadda magaalada Muqdisho halka ay ku baaqday kuna amartay inay imaadaan Axmed Maxamed Islaam iyo Saciid Cabdullaahi Deni magaalada Muqdisho ayagoo wadanin wax ciidan ah oo ilaala ah dhanka kale dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay dagaal ka dhana ku qaadi doonto khawaarijta ku dhumaalaysanaysa gudaha dalkeena Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay inay halis amni galeen xilli ay ku sugnaayeen hawada sare ee garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho asagoo intaas ku daray inay u baahan tahay dowladda federaalka in lagala xisaabtamo halista ay gelisay ciidanka iyo diyaaradaha rayidka ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaan soo saarin wax war-saxaafadeed oo ilaa hadda ka aamusan ku soo dhawaada daawadayaal channelkeena Cabdiraxmaan Toosiye subscribe dhaha gambalaalkana furta si aan idinla wadaagno wax macluumaad ka soo cusboonaada